بسم الله الرحمن الرحيم waxaan caaway halkan ku qabanaynaa shir jiraa'id oo ku saabsan guushii ciidamadeena qalabka sida oo kaashanaya ciidanka AMISOM iyo saaxiibada caalamku ay ka soo hooyeen dagaal toddobaad socday magaalada Bariire ee gobolka Shabeellada Hoose. Ilaahay ayaa ku mahadsan guusha iyo gacan sareynta uu siiyay ciidamadeena qalabka sida iyo inuu u suurtageliyay inay jabiyaan kooxihii khawaarijta ee shacabkeena dhiigiisa iyo dheecaankiisa jaqayay 18 sano la soo dhaafay. Anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda difaaca iyo kan ciidanka xoogga dalka iyo sidoo kale kan xukuumadda, waxaan halkaan rabaa inaan uga hambaliyeeyo guusha iyo geesinimada ay ka muujiyeen ciidamadeena qalabka sida fagaarayaasha dagaalka, gaar ahaan degmada Bariire oo muddo toddobaad ah ay isku farasaarayeen kooxaha khawaarijta ah. Dagaalkaas toddobaad ka socday runtii kooxaha khawaarijtu waxay isku dayeen inay hakiyaan socodka ciidanka iyo ciidamadeena qalabka sida iyo ciidanka AMISOM ee Uganda, qaybtooda Uganda inay hakiyaan ayay isku dayeen. Waxay qoteen godad aad u dhaadheer oo shacabka Soomaaliyeed qaybo ka mid ah ay arkeen, meediyahana ku jirtay maalmihii la soo dhaafay. Waxay isku dayeen inay baabuur qaraxyo laga soo buuxiyay ay ku hakiyaan halgankii ciidankeena ugu jireen dib u xoreynta deegaamadaas. Ilaahay fadligiis waxaasoo dhan waa ay ka gudbeen. Dagaalkaas muddada toddobaadka socdayna maantay ayaa loogu daatay godadkii iyo goobihii ay uga sugnaayeen dhulkaas. Waxaana maantay muddadaas toddobaadka ah kooxahaas khawaarijta laga dilay tiro u dhow 120, waxaana looga dhaawacay traintaas ka badan, iyadoo laga qabtay qayb ka mid ah maxaabiis kooxahaas khawaarijta, sidoo kalena hubkii daadiyey oo hadda ciidamada qalabka sida ay aruuriskiisii ku jiraan. Waxaa sidoo kale ay ka carareen meydadkii canaasirtoodii oo iyaduna ciidanka qalabka sidaahi ay hadda aruuriskiisii ku jiraan. Caaway oo ah 8 bisha 8 2025 degmada Bariire oo ka mid ahayd degmooyinkii kooxaha khawaarijtu ay ku faanayeen ayna ku doonayeen inay ku qalqalgeliyaan amniga caasimadda. Caaway waa xor, waxaana shacabkeeda ugu baaqaynaa marka la hubiyo kadib baaritaan baa socda miinooyinka iyo looga saarayo meelihii ay miinooyinka geliyeen. Markaas wixii ka dambeeya inay shacabku ku soo laaban doonaan. Qabashada Bariire laba macno ahaan dhammaadkii halgankii iyo dagaalkii lagula jiray xaq ahaa ee lagula jiray kooxaha khawaarijta, balse wuxuu u yahay station ama isgoys muhiima oo Bariire waxay ku taallaa meel istiraatiijiga isku socodka ee deegaamadaas gobolka Shabeellada Hoose iyo caasimadda Muqdisho. Waxayna u ahayd meel istiraatiijiga bilihii la soo dhaafay kooxaha khawaarijta. Marka Bariire qabashadeedu loo mid ahaan dhammaadkii dagaalka, balse waxay tahay meel muhiima oo ka baxday gacanta kooxaha khawaarijta ah. Ciidanka qalabka sida Soomaaliya iyo ciidamada caawinayana waxay diyaar u yihiin inay horay u sii socdaan oo dagaalkaas uga sii socdaan. Waxaan rabaa inaan halkaan baaq yar uga diro aan u hambaliyeeyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka, ciidanka AMISOM gaar ahaan ciidanka Uganda iyo saaxiibada kale ee caalamka oo runtii gacan weyn ka geystay in guushani ay xaqiiqowdo maantay, oo kooxaha khawaarijtana dhabarka loo saaro dhimasho badan iyo dhaawac badan iyo quus aysan hadda kadib ku dhici doonin inay hor istaagaan ama isku horgudbaan ciidankeena qalabka sida. Waxaa maalmihii la soo dhaafay kooxaha khawaarijtu waxay adeegsanayeen meediyaha ayagoo propagandkoodana dad Soomaaliyeed iyo hay'ado waaweyn oo ajnabi intaba
ay brobagankaas u faafinayeen in kooxaha khawaarijtu ay u suurtagelayso inay dalka Soomaaliya dib u qabsadaan. taasi waa habeenkii xalay ahaa oo tagay waxaana beeninaysa maantay khasaaraha ka gaaray kooxaha khawaarijta degmada Bariire. waxaan rabaa ciidankeena inaan fariintan u dambaysa halgankii waad guulaysateen. waxa weeye waxaad muujiseen moralka shacabka Soomaaliyeed baad kor u qaadeen, moralka ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qalabka sida furimaha kala duwan jooga ayaad kor u qaadeen. waxaan leenahay dagaalku intaas kuma eka, horay ha loo socdo ilaa dhulka Soomaaliya laga nadiifinayo kooxaha khawaarijtaana dagaalkan wuu soconayaa. ilaahay baana ku mahadsan oo ugu mahadinaynaa guushaas. waxaana leenahay oo ku soo gabagabaynaynaa wasayaclamu alladina zalamuu ay munqalabin yanqalibun.